ugu yaraan 7 qof ayaa geeriyootay waana Soomaali waxaana la soo sheegay in tirintaasi ka badan ay ku dhaawacmeen dagaal mar kale ka qarxay deegaanada Soomaalida ay ku dirarayaan iyagii Oromada. Najiib Cabdulle Cabdixiis ayaa warkan ka soo diray magaalada Jigjiga. halkan aan ku suganahay waa cusbitaalka guud ee deegaanka Soomaalida ee Referral Hospital waxaana yaala dhaawaca 8 ruux iyo dhimashada 7 ruux oo ku soo waxyeeloobay dagaaladii shalay gabaldhacii ka dhacay deegaanada Tuli Guuleed iyo sidoo kale Baabuli dagaaladaas oo u dhaxeeyay qoomiyadda Oromada iyo Soomaalida waxaana telefishinka caalamiga ah ee Universal waanu waraysi la yeelanay qaar ka mid ah dadkii dhaawacyada ahaa ee ku soo waxyeeloobay dagaaladii shalay gabaldhacii ka dhacay deegaanadaasi waxayna nooga warbixiyeen xaaladooda caafimaad ee ay dadkaasi ku sugan yihiin ya aduu ilaahiga bixiyay niman meel guus joogay ilaahiga bixiyay saasay nafteedana ku badbaadeen gacantana man joogo gaarsiin caafimaadkayga maanta ilaahay ma iga fiican waxaa joogay 3 qof kuwii kale way baxsadeen marka la eego deegaanka joogteen ma shacab baad isleeynayeen mise ciidamo caadi isleeynayeen ma ciidamo caadi oo wax isleeynay gursumka yimid qeyra ooga annagu gudaha iyaga intay ka tageen bay calan la yimaadeen maalinkii ka horreysay calankii joojiyay calankii waan ka fujinay sidii markaa duulimaad bay igu yimaadeen maalinka dambe aniga duulimaad gaadmo igu yimaadeen anoo beeraasho magacayga waxaa la yidhaha Cabdilaahi Aadan Sugaal Cabdilaahi waxaan noo warbixisaa dhacdadii meesha ka dhacday iyo dagaalkii qabiilka labada qabiil u dhaxeeyay Oromo iyo Soomaaliya u dhaxeeyay qolada fanooda ay nagu xasuuqaysay iyo ninkana ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay banka meesha la yiraahdo Dacwaley ee xasuuqu ka dhacay 7 nin meedku ka yaalaan buu la jiray halkaa waxaa ku laayay qolada Oromiya ay fanooduna taageerayso marka saas ku dhaawacmay lagu keenay meedkuna ku yaalaa meesha 7 qof meedka buu la socday oo isna dhaawaci kaliya la socday miya waa soo la jiray sagada deegaanada ay arintu ka dhacday imika hawsh ka jirto xaalkeed meesha lagu dagaalamay shalay oo kale waa sidee maanta qudheeda meeshii uu shalay ka dhacay meel ku dhow buu aad dagaalku uga socdaa jiriila iyo koorle iyo dhulkaas maanta aad uga socdaa meel yar u jirta marka laakiin meeshii shalay toole caalam bay ku taagan weyna taagan yihiin qoladii Oromada xaaladii caafimaadka eegana waxay igu hadhay laagta dheer baa igu dhacday xabadii haddii qofta igu dhacday laagta dheer baan ku dhacday dhabarkiiyo meelahaas ha igu jabay waxaasi mooyee qoftani waa ladnahay adeer dhinaca kale boqolaal ka mid ah shacabweynaha ku dhaqan magaalada Jigjiga oo soo buux dhaafiyay barxadda weyn ee cusbitaalka Referral Hospital ee magaalada Jigjiga oo waa hagaagka wararkaasi oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena soo socda insha Allah.